wasaaradda maaliyadda ayaa cashuur ku kordhisay jaadka dalka soo gala waxaanay ganacsatada qaadku ka muujiyeen cashuurta lagu kordhiyay cabasho ma jiro war rasmi ah oo ay wasaaradda maaliyaddu ku xaqiijisay cashuurtan ay ku kordhisay qaadka laakiin war uu helayo wargeyska geeska Afrika ayaa xaqiijiyay in baaga jaadka lagu kordhiyay cashuur u dhigata 10%. jaadka ayaa inkastoo uu kala duwan yahay haddana tusaale ahaan baaga ka midka ah jaadka dalka soo gala waxaa ku jira 20 kiilo waxaana kiilo kasta laga qaadi jiray 25,500 oo shilinka Somaliland ah. haddase waxaa kiilooga laga qaadi doonaa 29,500 oo shilinka Somaliland ah. baaga uu ku jiro 20 kiilo ee qaadka waxa markii hore laga qaadi jiray 510,000 oo lacagta Somaliland ah, haddase waxa laga qaadi doonaa 590,000 oo lacagta Somaliland ah, taasoo u dhiganta in 80,000 baagiba lagu kordhiyay. waxaanay noqonaysaa cashuur 10% ku kordhaysa baagi qaadka ahaa. ganacsatada qaadka ayaa la sheegay inay cabasho ka muujiyeen cashuur kordhintan wasaaradda maaliyaddu ay ku samaysay waxaana shalay dib u dhacay qaadkii la cashuuri lahaa ee habeen hore soo galay iyadoo ugu dambeyntii waanwaan lagu soo daayay xilli dambe qaadkii. ganacsatada qaadka ayaa cabasho ka muujinaysa cashuurta qaadka ay dawladdu ka qaado muddooyinkii u dambeeyay xukuumaddu ay kolba sare u sii qaadaysay.